qaybta ugu dambaysa nolosha ama qaybta lixaad ee u baahan qorshe in loo dejiyo waa gebagabadii waxa weeyaan waa skillska waa inaad yeelato xirfado kaliya ta kuma filla aqoonta aad jaamacadda ku dhiganaysaa ama aqoonta aad buugaagta aad ka akhrisanayso ama aqoonta aad meelaha ka daawanayso waxa loo baahan yahay xirfad gacanta laga qabto inaad leedahay waa lagama maarmaan marka imika waxaan idiin soo qoray dhowr xirfadood oo xataa takhasuska aad doonto haddii aad dhiganayso lagama maarmaan ay tahay inaad taqaano ama aad garanayso xirfadahan aan sheegi doono oo dhan kuma caawinayaan baa la guri reading box inaad buug aad ka akhrisato waxa faa'iido ma leh waxa loo baahan inaad ku tababarato oo aad gacantaada aad ka qabato waayahay ilaa waxaan soo qoray 8 xirfadood number 1 waxa ugu horeeya planning waa xirfadda loo yaqaan qorsheynta welibana waxaan uga jeednaa waa qorsheynta mashaariicda waayahay qorsheynta mashaariicda waa inaga hore u dhiganay laba ay u kala qaybsamaysi waxay kala in labadii xasuusta midna maxay operational planning midna maxay strategic planning labada xirfadood qofka aanan garanayn ama wali ay waxooga ay ku adag tahay waa lagama maarmaan inuu yaqaano marka imika idinku meel baad ku fiicantiin xirfadahan kale oo dhan halkan aan soo sheegi doono oo dhan waxa laga yaabaa inaad si free aad meelaha internetka kaga heli kartid laakiin markay noqoto xirfadda qorsheynta mashaariicda marka ay noqoto inaad jaamacadda ku dhigato ama inaad tababar muhiim aad ku qaadato maahe si kale aad ku baran karaysaa ma jirto marka imika taan waxa marxaati ka ahay inaan dhamaantiin ay idin wada dhigay ninkii xiisadaha jajaray anuu kuma darayo xisaabta laakiin ninkii wada joogay waa kii koorasku inoo dhamaaday si fiican imtixaankiina wax wanaagsan waad ka keenteen ma sha Allah xirfadda labaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan waa leadershipka maadaama imika aad barateen kuliyadda maamulka mashaariicda waxaan rabnaa inaad mashaariic aad maamushaan shaqada waxaan idin rajeynaa halka ugu sarreysa ma aha inaad xagga hoose ku soo noqotaan waxaan idin filaynaa inaad manager iyo aad noqotaan rag hogaamiyeyaal marka xirfadda hogaaminta waa lagama maarmaan caalamul islaami imika dunida islaamka meelaha ugu badan ee ay dunida islaamku ee dhibaatooyinka haysta waxa kamid ah hogaanka xun marka waxa ka bulshadiyo wanaagsan oo fiican oo jecel horumarka laakiin hogaankeedu uu baar yahay uu aad u xun yahay caalamul islaami oo dhammi jirta marka hogaamintu waa xirfad la barto waana cilmi la barto waa lagama maarmaan inaad barataan qodobka saddexaad waxa weeyaan waa decision making waa xirfadda loo yaqaan go'aan qaadashada adduunyada oo dhan ama nolosha oo dhan waxay ku salaysan tahay go'aan aad qaadato maanta halka go'aan baad ku timiday haddii imika 10 aad dhegeysanayso go'aan baad ku dhegeysanaysaa jaamacadda go'aan baad ku soo gashay marka xirfadda go'aan qaadashadu horta cilmigu inta aanad baranin oo dhan waxa uu ku leeyahay wax aan macna lahayn waayo hore u yiraahdeen carabtu annaasu a'daa'un lima jahilu dadku cadow bay leeyihiin bal waxayna garanayn marka imika waxa xasuusta maalintii ugu horeysay ee weydiinayay aan qorsheynta bilaabaynay ayda ku dhino ereyga qorsheyn maxaad ka fahansan tahay fahankiinu aad buu yar waxba kama ila fahansanay ama marka qorsheyn la yiraahdo wax iska mala yacni aad weysatay laakiin marka cilmiga dhex gasho ayaad ogaanaysaa inuu intanina ay ka maqnayd marka markastoo cilmi ku soo kordho waxaad sii ogaanaysaa adiguna jaahilnimadaada iyo kolba inta ka dhiman marka go'aan qaadashadu waa xirfad laga maarmaan inaad baratid xirfad kale oo aad u muhiim ah ayaa jirta iyaduna ay labada gabdhood de madaxood naga qaateenba waana idin maqlaynaa naga joojiyay sheekada waxa weeyaan feasibility study xirfadda loo yaqaan feasibility study ga garanaya waxa ay tahay anyone ya hore u maqlay waxa ay tahay feasibility study okay dib male feasibility study ga idinku nasiib wanaag haye Jabir very good very good that's so English صح okay si fiican buu soo dhaweeyay feasibility study ga idinka nasiib wanaag waa xirfad idin soo socota course dhan baad ku baran doontaan waxa ka sheekaysaa wuxuu ka warramayaa mashruuc marka aad galaysid waxay u baahan tahay inaad daraasad lagu sameeyo marka inta badan dadkeenu markay ganacsi ama mashaariic iska galayaan way iska soo galaan ama qof unba wax ka qaataa iska soo galaan daraasadba kuma sameeyo hadda wax laga yaabaa inuu ku fashilmo marka mashruuc lagu sameeyay daraasad oo fashilma aad buu u yartahay in la arko marka feasibility study waa xirfad lagama maarmaan ah waayo waxaan rabnaa hadhow tolo mustaqbalka mashaariic fara badan baad gali doontaa adiga mashaariic samaysan doona dad baad mashaariic la gali doontaa marka waxa muhiim ah mashruucan in aad qiimeyn karayso oo aad qiimeyn ku samayn karayso marka feasibility study guna waa xirfad aad u muhiim xirfad kale jirta iyadoo oo lagama maarmaan waxa dhigatayba takhasus ka doontaba dhigo laakiin inaad taqaanaa waa muhiim waa xirfadda loo yaqaan computer skills
adduunyada awal ummiga waxa la oran jiray qofka aanan waxna qorin waxba akhriin ba jaahil loo yaqaanay imika jaahilku waayo waa qofka aan computerka garanaynin marka computerka gaar ahaan basicska waa inaad ka dhisan tahay marka basic waa inta de wordka office-ka baan u jeedaa wordka iyo powerpoint-ka iyo excelka iyo access-ka iyo intaas iyaga waa daruuri sida faatixada waa inaad u garanayso weeyaan waxa kale oo muhiim ah inaad garanayso computer timing ha noqdo carabi ha noqdo ingiriis macnaha computerka markaad wax ku qorayso waxa muhiim ah inaad dushaad kaga qori karayso adigoonan keyboardka aanad hoos u eegin marka waa xirfad aad u fudud in la barto 1 week kaliyaata ayaad ku noqon karaysaa professional waxaan imika xirfada meesha aan sheegayno oo dhan hal week dhammaantood idinka kama badanayaan ka ugu badan baa laga yaabaa 2 week inuu gaadho marka computerku waa lagama maarmaan waa inaad garanayso haddii kale adigoo hadhow toolan weyna marka meelaha la soo fadhiisto ama mashruuc la wado ama wixii computer ba imika adduunyadii wada noqotay basicski cidna kuma la takhasus waxa u baahan qofka IT-da dhiganaya laakiin adiga waxa lagaga baahan yahay inaad inta generalka inaad aad u fahansantahay xirfada kale laga maarmaanki waxa weeyaan waa luqadaha gaar ahaan labada luqadood ee carabiga iyo ingiriiska qofkii ay wax ka dhiman yihiin labadaba waa inaad garanayso carabiguna waa luqadii diinteena weeyaan waa luqadii aynu maalin walba ku cibaadeysanay waa luqadii oo quraanku ku qornaad ku fahmaysay waa luqadii xadiiska nabigu ku qornay kaleey salaatu wasalaam waa laga maarmaan inaad barato arday badan oo imika waxa jirtay intiina imika halkaas qaar badan oo mar hore aan carabiga xataa u dhigi jiray baa jira ardayda inta ugu badan carabiga aan inta muddo badan baan dhigi jiray waa maadada malaha ugu adag ee lagu dhigto jaamacadda ama dugsiga lagu dhigto dadka waxa ka dhacsanba horta waxaan ma baran karaysid aanu carabi aanu macallin ma garanayo ku leeyahay marka waa muhiim haddii aanad garanayn ceeb maaha garasho la'aantu maanta nin dhalinyaro tahay waa inaad qorshahaaga ku darsato luqadda carabiga in aad ka soo baxdo waxa kale laga maarmaan luqadan aad wax ku dhiganaysaa imika waa luqadda ingiriiski waa luqadda maanta number 1 adduunyada taagan waa luqadda 80% researchka adduunyada lagu qoro weeyaan marka luqadda ingiriiskiina waa inaad iyadana aad meel dhigto imika sanadka inoo bilaabmay waxa aan sheegayno oo dhan dhammaantood wada baran karaysaa markuu dhamaado adigoo professional aad ka soo bixi karaysaa inta imika meesha inoogu qoranba marka ingiriiskana qorshe waa inaad u samaysatid aad ku baratid ingiriiska alxamdulillah waa intaas sanad wax ku dhiganaysid in badanna waad ka garanaysaa marka la eego waxa laga yaabaa maanta imtixaan la inaga qaado 60-70% inaad soo gaadhaan intaad ka garanaysaan 20 ama 30% ku dhiman ku sii yardar iskana soo gabagabay marka luqaduhuna waa laga maarmaan qodobka toddobaad waxa weeyaan graphic design qofka aan garanayn maxaan ku qeexi karaa waa xirfad iyadoo lafteedu la xiriirda computerka marka waxa la xiriirda mesela qurxinta sawirrada samaynta muuqaalada waxyaabahaas weeyaan marka wax kasta oo aad barato waa laga maarmaan hadhow talaad u baahan doonta inaad barato marka waxa muhiim ah inaad barato programyada Photoshopta programka kale PR-ka la yiraahdo lagu habeeyo fiidiyoda marka video editing-ka iyo samaynta muxuu ahaayay sawirrada iyo waxa jeeda qurxinta sawirrada iyo muuqaal samaynta waa xirfad laga maarmaana oo qof walba haddii maanta ka dhiman tahay loo baahan yahay xirfadda inaad yeelato waxaan ma wax buug laga akhristo Photoshop iyo wax buug laga akhriyo computer iyo ma waxan iyo English iyo wax buug laga ma akhriyo waxa weeyaan waa xirfad aad baranayso oo kula soconaysa kadibna aad gacantaada aad ka qabanayso xirfadda ugu dambaysa ee laga maarmaanka waxa weeyaan waa public speaking oo waxa loo yaqaan fagaara ka hadalka weligaa maalin baad u baahan doontaa inta dad soo hor istaagto gaar ahaan nimada inaad ka hor hadasho waxa doontaba ahaw marka waxa muhiim ah xirfadaas in aad barataan fagaara ka hadalku waa xirfad aanu qofna ka maarmi karin nin baa la weydiiyay Voltaire inuu haban malinaya waxa lagu yiri xirfadaha aad taqaano oo dhan cilmiga aad taqaano oo dhan teebada ugu jeceshay waxaan ugu jecelahay wali public speaking ka fagaara ka hadalka waayo taa haddii waxa la yiri matan laga wada qaado aqoontaada dhan laga wada saaro teed la soo heli lahayd baa la weydiiyay public speaking ka la soo heli lahayd waayo public speaking hadad garanayso fagaara ka hadalka hadhow toole waxaad u muuqanaysaa qof lagu kalsoonaan karo waxaad maanta dad shaqo geysito waxa weeyaan kaliya tasaad u hadlayso qof waliba qiimeynaya haddii aad muxuu ahaayay aad mashruuc aad rabtay in lagu siiyo hadalkaaga qof walba qiimeynaya marka waxa weeyaan hadalku waa laga maarmaan waana xirfad la barto nabigana kaleey salaatu wasalaam ilaahay baa ku amro wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha baligul marka xirfadda hadalku waa laga maarmaan qofkay ku adag tahay ama markuu saan oo kale dad soo istaagay yar baqbaqaya ama gariiraya waxa loo baahan yahay ma horta waa iska normal adduunyada waxyaabaha laga cabsado way kala sarsareeyaan
toban shay baa la yidhaahdaa adduunyada dadka oo dhan ka wada baqaan marka maxaa daraasad lagu sameeyey waxa ugu horeysa public speaking in qof lagu soo hor istaajiyo oo waxa ugu badan ee dadku ka cabsadaan weeyaan marka iska normal wax dhibay ma jirto waana iska baran doontaa marka imika xirfadahaas jaamacaddu waa tahay imika laydinku yidhi waxaan u baahanay in tababar laydin siiyo welibana waa laydin sheego waxaa laydin yidhi idinku soo qorta tababarada aad u baahantihiin marka tababarada aad u baahanaysaani ha noqdaan intaa imika halkaa ku qoran wixii aad ka garanaysana waad garanaysaa sida planninka iyo waxaa waan dhiganay inta idinka dhimane muxuu ahaayey loo wada baahan yahayna waxaa muhiima in jimcayaashaasoo kale imika maanta jimcay ahayd waqti waxay ahayd la wada fadhiyo jimcayaashaasoo kale laga faa'iideeyo oo 2 cisho ama 3 cisho imika tababarka waan idiin sheegay sanadkii waan idiin ugu yaraan 3 wanaad soo xaadirto markaad rabtaan qof caalimo aad noqoto marka 15 saacadood buuna ahaa marka haddii la idiin qabto tababar 3 cisho soconaya midkiiba 5 saacadood uu yahay enough weeyaan way idinku filan tahay macnaheedu marka lagu daro exercise-yadiisa break iyo waxa marka lagu daro 5 hours idin soconaya waa wax aad uga faa'iideysan marka bishii hal tababar wad dhameyn karaysaa ma aha haddii bishii laga caajiso labadii bilood hal waa la dhameyn karaya si sanadkii marka 6 tababar oo muhiim ah u noqoto marka training-ka ama skills-ka xirfadaad qof xirfad leh inaad noqoto lagama maarmaan oo aanan kaliya ta ku koobnayn aqoonta uu ka baranayo jaamacadda waayahay halkaas haddaba ku dhan tahay qorshihii nolosha 6 qaybood ayayna kala ahayd 6 qaybood mid walba aanu maxaa idin sheegay halkii ugu hooseysay buugta halkii ugu hooseysay inta laga akhriyo cibaadada halkii ugu hooseysay cilmiga halkii ugu hooseeyay marka waxaan rabnaa qof walba si hadalkii markii hore idin sheegay inaad halkaa ugu hooseyso horta aad soo gaadhiin kadibna aad u sii horumartid horay aad u socotid ayaynu u baahannahay